caado ahaan jirtay waqtiyada xilka way soo dhow yihiin oo doorashadu dhowdahay in markaas la ordo oo qabanqaabo la galo kadibna wax bay farax ka baxaan laakiin annagoo 1 sano iyo 4 bilood iyo 5 bilood joogna yaan waxaan go'aan ku qaadanay in aan ka howlgalno qaabkii iyo habkii doorashooyinka loo gali lahaa 2020 ilaa 2019 la gaaro ka bacda la fiiriyo suurtagal ma tahay doorashada ha iyo maya ma sugayno hadda 2017 aan bilaabayna waxaan idinka rabaa gudiyo inaad gadaal u soo xisaabtantaan 2020 ka soo bilaabo reedo u soo xisaabiya suurtagal ma tahay arrimaha la iska doonayo inaan hirgelin karno 2020 haddii maya ay tahay walaalayaal hadda ii sheega muddada xilhaynta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku waxa ay dhammaanaysaa 4 bil kadib marka ay dhammaato muddada xilhaynta madaxtooyada iyo baarlamaanka sida uu dhigayo qodobka 9aad ee xeerka uu ku dhisan yahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku muddada xilhaynta ee guddigu waa 6 sano oo aan la soo cusboonaysiin karin taas oo ka bilaabanaysa maalinta baarlamaanku ansixiyay xubnaha guddiga doorashooyinka haddaba golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ansixiyay 9 xubnood ee guddiga doorashooyinku ka kooban yahay 6 Julaay 2015 sidaas awgeed muddada xilhaynta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku waxa ay ku eg tahay 6 Julaay 2021 sida ay qabaan qodobada 60aad iyo 91aad ee dastuurka kumeel gaarka ah muddada xilhaynta golayaasha dawladda federaalku sida madaxtooyada iyo baarlamaanku waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada baarlamaanka lagu dhawaaqo iyo maalinta madaxweynaha xilka loo dhaariyo sidaas daraaddeed muddada xilhaynta baarlamaanku waxa ay dhammaanaysaa 27 Diseembar 2020 halka muddada xilhaynta madaxtooyadu ay ku eg tahay 8 Febraayo 2021 haddaba sidee suuragal u tahay in waddanku yeesho dabayaaqada 2020 baarlamaan la soo doortay horaanta 2021 ay u hirgeli kartaa ama u dhici kartaa doorashada madaxweynuhu aragtida hirgelinta doorashooyin qof iyo cod ah oo ka dhaca waddanku waa halxiraalaha ugu adag ee hor yaalay xukuumadihii dalka soo maray kadib muddada dib u kabashada iyo dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya siyaasiyiinta ku jira baarlamaanka muddo 20 sano ah qaarkood waxa ay qabaan in furidda halxiraalaha doorashooyin qof iyo cod ah nabad ah oo xasiloon ay u baahan tahay madax aan ku marqaamin xilka isla markaana aan sii macaansan marka uu dhammaadka yahay ama aan rumaysan halhayska marin habaabinta madaxda sax weeye qabashada doorasho qof iyo cod ah waxa ay ka mid ahayd waajibka xukuumadihii kumeel gaarka ahaa ee laga soo bilaabo 2000 ilaa Sebtembar 2012 iyada oo aysan xitaa suurtagal ahayn xilligaas ka hor in doorashada madaxweynuhu ka dhacdo magaalada Muqdisho waana taas sababta ay magaalooyinka Nairobi, Djibouti, Addis Ababa iyo Qaahira u ahaayeen ka hor Sebtembar 2012 qiblada siyaasadda Soomaaliya taasi waxa ay sababtay fadhiidnimo siyaasadeed oo gaartay in dadweynaha iyo matalayaashoodu aanay war isu hayn wixii ka horreeyay dabayaaqadii 2016 xilligaas oo xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheikh ay u suura gashay dhismaha 4 dawlad goboleed oo ka hirgalay bartamaha iyo koonfurta waddanka kuwaas oo tirada dawlad goboleedyada waddanka ka dhigay 6 dawlad goboleed oo caasimaddu aysan ku jirin 5 ka mid ah 6daas dawlad goboleed waxa ay ogol yihiin ka mid ahaanshaha jamhuuriyad federaal ah oo dawladnimadeedu ka kooban tahay 2 heer taasna waxaa saldhig u ahaa dastuurka kumeel gaarka ah oo qudhiisa la yabyabay Agoosto 2012 kadib 43 sano musiibadii ciidanku horseeday Oktoobar 1969 oo uu ku duulay xukunkii iyo dawladnimadii tala wadaagga ahaa ee ay ku dhisantay dawladnimada Soomaaliya horaanta 60meeyadii xukuumaddii Xasan Sheikh oo taageero ka heshay UNSOM waxa ay fududeysay in dadweynuhu ka qayb galo doorashada kuraasta baarlamaanka iyada oo la adeegsanayo hanaanka beelaha taas oo ka dhignayd in xildhibaan walba codka ergo ka kooban 51 xubnood oo ka tirsan beeshiisa uu ku yimaado aqalka hoose ee baarlamaanka sidaas oo kalena ay baarlamaan goboleedyadu
soo doortaan xubnaha aqalka sare. Doorashadaasi waxa ay ahayd doorashadii ugu horraysay ee ay dadweynuhu ka qayb galaan kadib doorashadii baarlamaanka oo ka dhacday waddanka Maaj 1969kii, taas oo lagu maamulay xeer lambar 13 oo soo baxay sanadkii 1968. waxaa aniga fursad aan ku faanayaa xilliga aniga hoggaanka aan joogay taladii Soomaaliya. xildhibaanadii maanta Baydhabo lagu dooranayaa, Garowe lagu dooranayaa, Cadaada lagu dooranayaa, Kismaayo lagu dooranayaa, dabcan Muqdishona qaar lagu dooran doonaa. yacni inaanay hal meel ku urursanayn ee taladii inta baahday halkan doorashada ka socota aniga madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan u imiday inaan dadka dhiirigeliyo doorashada inay si fiican u dhacdo. laakiin dadka wada iyo dadka isdooranay iyo waxa la dooranay iyo dhammaan muxuu ahaay 3,000 oo qof dad ka badan meeshaan imaanayo ku codaynay ama magaalada degan ama ka imaanayo dawlad goboleedka qaybaheeda kala duwan iyo meelo kale. sidaas awgeed 4 sano kadib doorashadii 2016 329 kursi oo uu ka kooban yahay baarlamaanka federaalku sida muuqata waxaa lagu soo dooran doonaa haddiiba aysan ka hoos marin isla nidaamkii 2016. taasina waxa ay arrinta dib ugu celinaysaa sidii xaalku ahaa dabayaaqadii 2016. sababtu waa inaanay weli suurtagal ahayn hirgelinta doorashooyin qof iyo cod ah. waxa aad isweydiin kartaa cidda iskale mas-uuliyadda ama qaadanaysa gaabiska dhacay ee sababay in 2020 uu taagan yahay welwel ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada. jawaabtu waxa ay kaaga imaanaysaa isla baarlamaanka. guddoomiyihii golaha shacabka oo xukuumaddu u arkaysay inuusan la jaanqaadi karin xawaaraha sare ee nabad iyo nolol ayaa jeediyey hadal loo arkaya dhulgariir balse sababay in la karho. inkasta oo madaxweyne Farmaajo sheegay inuu noqonayo nabadoon dadka oo dhan u dhaxeeya islamarkaana uu ka leexanayo dhaqanka madaxdii ka horraysay ee ahaa in 3 xukuumadood la dhiso 4 sano oo kasta gudahood, haddana waxa ay madaxtooyadu ku dhacday guddoomiyihii baarlamaanka oo loo doortay sida loo doortay madaxweynaha, islamarkaana ah madaxweynaha dahsoon ee talada iyo xukunka si toosa ula wareegaya haddii madaxweynuhu si aan caadi ahayn u banneeyo xilka. Juun 2018 dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu waxa ay Baydhabo ku gaareen heshiis quseeya habka iyo nuuca doorashooyinka ka dhacaya waddanka sanadka 2020, wadaagista khayraadka iyo hannaanka wada shaqaynta labada heer ee dowladda. dhinaca doorashooyinka waxa ay ku heshiiyeen in habka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee sanadka 2021 uu noqdo nidaamka matalaadda isu dheelitiran ee nuuca liiska xidhan, kaas oo ah hannaan baarlamaanka ka siinaya xisbi iyo urur siyaasadeed walba oo ka qayb gala tartanka doorashada tiro kuraas ah oo u dhigma tirada codadka uu xisbigu ama urur siyaasadeedku ka helo doorashooyinka. heshiiskaas xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyadu waxa uu horumar fiican sameeyey markii xukuumaddu curisay hindisa sharciyaadka doorashooyinka, islamarkaana ku meel marisay in nidaamka doorashooyinku noqdo nidaamka matalaadda isu dheelitiran ee nuuca liiska xidhan May 2019. sidaasna waxa ay xukuumaddu ugu gudbisay baarlamaanka. Julaay 2019 guddoonka golaha shacabka ayaa magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood, kaas oo turxaan bixin ku sameeya hindisa sharciyaadka doorashooyinka. guddigaas baarlamaanku waxa uu nuqulkii koowaad ee xeerka doorashooyinka ku sameeyey waxoogaa isbeddel ah, kaas oo horseeday in baarlamaanku meel mariyo kadib muran iyo dood ka dhashay qodobkii 56aad ee xeerkan oo sii odorosayey suuragalnimada in doorashooyinku dib u dhacaan. muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyadana waxa uu u daayey sida ay qabaan qodobada 60aad iyo 91aad ee dastuurka ku-meelgaarka ah. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankana waxa uu ku waajibiyey inuu baarlamaanka oo wada jira uu hor keeno jadwalka, xogta iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qabsoomidda doorashada 180 maalin ama 6 bil ka hor muddada codbixinta. Diseembar 2019
golaha shacabka ayaa dood iyo muran muddo qaatay kadib waxa uu ansixiyey xeerka doorashooyinka iyada oo nidaamka matalaadda isu dheeli tiran ee nuuca liiska xidhan lagu beddelay nidaamka matalaadda kuraasta baarlamaanka ee aqlabiyadda ama horreeyaa guulaysta aqalka sare ayaa isna ku meelmariyey aqlabiyad waxa ayna arrintu weji kala yeelatay febraayo 2020 markii madaxweyne farmaajo saxiixay xeerka doorashooyinka kuna dhawaaqay in waddanku u dhaqaaqay doorasho ha yeeshee waxa uu ka sheegay munaasabaddii saxiixa xeerka doorashooyinka inuusan ahayn kii uu door bidayey isla markaana uusan shaqo ku lahayn ma xusin madaxweynuhu magaca iyo cidda soo xulatay hannaankan iyo haddii dawlad goboleedyadu qayb ka yihiin habsocodka doorashooyinka arrintu waxa ay sii dhabaqday markii ay soo baxday in madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre aanay siyaasad midaysan ka lahayn habka loola dhaqmayo dawlad goboleedyada sidaas awgeedna uu qaatay xasan cali khayre inuu saaxiibtinimo iyo xiriir wanaagsan la samaysto dawlad goboleedyada saamilayda siyaasaddu marka la joogo madaxtooyada waa guddoonka baarlamaanka iyo xukuumadda ha yeeshee marka la joogo xafiiska ra'iisul wasaaraha saamilayda siyaasaddu waa dawlad goboleedyada xukuumadda dhexe iyo mucaaradka waana taas sababta uu u wanaagsan yahay xidhiirka dawlad goboleedyada iyo xasan cali khayre sidaas oo kalena aanay siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood uga didsanayn xasan mey 2020 xasan cali khayre waxa uu shirka golaha wasiirrada ka jeediyey hadal ay ka muuqatay feejignaan iyo afgobaadsi badan kaas oo nuxurkiisu ahaa inay lama huraan tahay in waddanka ay ka dhacdo doorasho xasiloon oo nabad ah ayna tahay in xukuumaddu isu diyaariso hirgelinta doorashadaas dad badan waxa ay u qaateen inuu barabixinayey haddii ay jiraan damaca iyo rabitaanka la xidhiidha kordhinta muddada xilhaynta golayaasha dawladda oo bilowgiisiiba dood badan ku kiciyey xeerka doorashooyinka kaas oo si maldahan u sheegay in loo toog hayo dibudhaca ku yimaada doorashooyinka kaas oo horseedi doona in la kordhiyo muddaxileedka baarlamaanka iyo madaxtooyada taasna macnaheedu waa in la dhisi doono xukuumad cusub inkasta oo aan soo jeedinta kordhinta muddaxileedku aysan suuq iyo rabitaan ku haysan golayaasha siyaasadda ee waddanka haddana waa hab loogu laabqaboojiyo kuraasta iyo xilalka welwelsan ee ay suurtagalka tahay in isbeddelka siyaasadeed ee soo socda iyo duufaanta doorashooyinku ay u wareejiyaan meel kale waajibka xukuumadda nabad iyo nolol waxa ugu horreeya suurtagelinta in waddanku gaaro hirgelinta doorashooyin qof iyo cod ah dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo xaluhelidda nabadgelyada inta ay ku guulaysatay iyo waxa ay ka gaabisay wakhtiga ayaa sheegi doona ha yeeshee wasiirka koowaad ee xukuumaddu waxa uu xaqiiqsaday inaysan suurtagal ahayn in xukuumaddiisu qabato doorashooyin qof iyo cod ah sidaas awgeed waxa uu qayb ahaan ku qanacsan yahay in doorasha dhacdo weliba heerkii ay doonto ha gaarto ha yeeshee waxa uu ku dhiirigeliyey golihiisa xukuumadda inay lama huraan tahay in waddanka 4 sano oo walba ay ka dhacdo doorasho waxa suurtagal ah inaad isweyddiiso dhinaca guddoonka baarlamaanku ka taagan yahay doodda iyo arrinta doorashooyinka iyo sababta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabku uu keligii ugu lug leeyahay doorashooyinka sida caadiga ah hadda guddi baarlamaan ayaa si toosa uga shaqaynaya arrinta doorashooyinka guddiga doorashooyinkuna waxa uu keeni doonaa baarlamaanka ugu yaraan wax ay isku waafaqsan yihiin madaxtooyada xukuumadda iyo baarlamaanku waana suurtagal in sababta muddo bil ah dib loogu dhigay ay tahay in dhinacyadani wax isla qaataan balse sida laga yaabo inaad la socoto nabad iyo nolol waxa ay taageertay Maaj 2018
dhaqaaq siyaasadeed xilka looga tuuray maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa ayna gacan siisay in wasiirkeedii gaashaandhiggu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ha yeeshee muddo kooban kadib isla sannadkaas 2018 maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxa uu ka guuray madaxtooyada waxa uuna ka hor jeestay habkii xukuumaddu u maamulaysay xilligaas doorashooyinkii koonfur galbeed Soomaaliya kadib haddan siyaasadeed oo taagnaa muddo koobanna xal ayaa laga gaaray waxa ayse ahayd digniin ku wajahan guddoonka golaha shacabka iyada oo la og yahay in guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad ay deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed haddaba xukuumadda nabad iyo nolol ma furi kartaa halxiraalaha doorashooyin qof iyo cod ah